wadaadada hadda sheegayso ayaga haddii dadaal u muujiyaan oo ama ha isdabarana si usoo barteen ama meelo kale ha kasoo baxaan haddii dadaalayaan ay diinta ku dadaalayaan ay at least maxaa cahda ay keeni karaan ku jawaab hadda anu caabay leedahay maynu oran wadaadku waa dadaali karaa oo qofku inuu dadaalo wixii layska rabay oo qofka bini aadamka dadaala laysku dhaafay yani fadhi uma baahan waa in la dadaalo anu oran mayno laakiin waa inaad markaad aad gaartid heerka loogu talagalay cilmigu waxa weeyaan waxaa jirta qur-aanka muxuu ku leeyahay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma walmawcidati alxasana ilaahay waddadiisa waxaad ugu yeertaa adoo isticmaalaya xikmad iyo eri wanaagsan way kala horeysaa alxikma horta qofkii positionka xikmadii ma gaartay xikmadu waa maxay waa inaad fahamtid kelimada maa macna alxikma xikmadu macnaheedu waxa weeyaan thamrat lcilmi cilmiga markaa baratid miraha ka dhasho adigoo positionkaa aan gaarin marxalat lxikma adoon gaarin ha oran mataqaanaa dad baan wax u sheegaya ha oran mataqaanaa dad baan mataqaanaa wax baan fasiraya war maanta waxaa la maraya qur-aanka nin aan akrin karin boqolaalaan akrin qur-aanka nin aan akrin karin lafdigiisa ayaa doo awliya waan fasiraya qur-aanka min ayna laka hada hal sentence jumla carabiya saxiixa laba sadar oo carabi inaan akrin karin qur-aanka af carabiga ku qoray ayaa ku oranaya adoon wadnaaya waxa weeyaan marka qofkii ma diidayno laakiin waxa wey war marxaladii marxalat liftaa marxalad wax wala marxalad bay leeyihin marxalada gaar dabadeed wax samee ninka dhakhtarka la barayo oo weli ninka dhakhtarka fiyo 7 sano 8 sano ayaa waxaa la barayaa cilmiga isagoo soo maray tacliintii caadiga ahayd ayaa leeyahay jaamacadda markaad ka baxaysid ninka dhakhtarka iyo ninka caalimka ayaa ahamiyad badan ninka caalimka ahamiyad badan leanno ninka dhakhtarka wuxuu badbaadin karaa dad tirsan imsuu badbaadin karaa 10 100 200 300 1,000 2,000 ninkan caalimkana waxaa loogu talagalay mujtamac iyo ummadaas oo dhan inuu badbaadiyo keeba culeys badan ninka caalimkaa culeys badan walida rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay alculamaau warafatu lambiya caalimka ayaa waxa way dhaxalkii nebiga caalimkaa iskale marka lama diidin cilmiga waa baranaysaa laakiin qabla alisticjaal adigoon heerkii gaarin inaad ku degdegtid ayaa la diidaya marka horta qabiilkii aan hadalkiisa ku jirnay mid dhamaanaya ma aha laakiin waxaanu doonaynaa hal mar lama dhamayn karo laakiin balorta inaan isla ogaan inuu xun yahay maraaxil badan inuu soo mara oo si marka dambe aynu u gaarno marxalad ah in uu dhamaado waxaan ku tusinayaa example yar kuu badin maayo hadalka dhowr example baan kuu sheegaya oo ku tusinaysa dhibaatada iyo faraha culus oo qabiilka uu ku haya mujtamaca wakhaasatan qaar isku sheegaya culamo inay yihiin example aan ku tusinaya 1 + 1 2 oon la inkiri karin masaajid ku yaala london masaajidka waxaa la yihahdaa origin park waa masaajidka weyn oo mataqaanaa central london ku yaala ayaa la iskugu yimid dadka masaajid iskugu imaana waa garan kartaa ma dad culamo ah oo dad ahlu diina kulli iskugu imaanay muxaadarad baa la akriyay waxaan rabaa inaan kuu tusiyo mushkiladda heerka ay ka tahay soomaalidu ama aqoon ha sheegto diimeed ama ha sheegto aqoon mataqaanaa cilmi meelka bahasha qabiilka ay ka taagantay muxaadarad baa la akriyay raggii muxaadarada bixiya marka waxay ka digeen niman soomaaliyeed oo fidinaya diinta christanka soomaaliya ile war nimanka la iska ilaaliyo wax xun bay dadka u sheegayaan waa umuuro khatar mujtamaci bay kaga digayaan wax fiican bay sheegaan صراحة aad bay u fiicantay tamam halkaa waxaa ka dhacay soomaaliya hadda waxaa la yihi fiqi tolkii kama jannato rag kaloo wadaadaho meesha fadhiya baa istaagay waa xaqiiqa waa bari kartaa arrintan waa arrin london oo dhan rag badan ay og yihiin hadda qaar ag fadhiya baa og hadda ruuxeeda oranay waa arrinta waa la soconnaa waxay dhaheen war gaaladeena markaad sheegaysa ya ma kuwa qabiilkiina aad sheegtaan meeshiiba waxaa ka dhacday marka dagaal waa la iska hor yimid gaaladii ayaa waxay noqotay inay qabiil kala leedahay yani anigu qabiilkayga gaalkayga lagama hadli karo adiga gaalkaada adiga akhtiyaar baa u leedahay inama almu'minuuna ikhwa ma la daba masaajidaan ku jirnaa ale
haddii meel boob ay ahaan lahayd ama fadhi kudir ay ahaan lahayd lama yaabin ama aroosyada waa la isku dilaa maalin walba lama yaabin laakiin masjid baytullah muxaadarad baa la akrinaya culamaa wadaado waa la isku yimid hal warka bal kelimada miisaan saar waxa weeyaan gaalkeena kama hadli kartaa maana ninka gaalkiisa ah waa special waxa weeyaan hadaba marka inama almu'minuuna akhwa ma jirto marka example kalaan ku tusinaya oo iyaduna xaqiiqa ah waxay ka dhacday South Africa ninkii ay ku dhacday ayaa nooga sheekay toos hari man asnada faqad rawa yani waxa weeyaan qisada ninkii ay ku dhacday ayaa toos nooga sheekeynay ninka wadaadka oo arrinta sheekha ah oo arrintan nooga sheekeynay South Africa degana wuxuu markaa nin Soomaali baa ayaan isnaqaanay oo isagana mataqaanaa sheekha meesha wax mehriya dadka mataqaanaa wax u sheega maalinta dab wuxuu yidhi anigoo zoonihiisa maraya ayaa salaadii qabatay markaasa waxaan u baahday gurigii kaba galay inaan gurigiisa ku tukado gurigaan u garaacay waa layga furay waa laysoo dhaweeyey salaadii baa meeshaas kaaga bixiyey sheekii waa joogiya waa la sheekaystay nin kale noo yimid buya markaasa la yidhi ma baxaysid ninkii martida ahayd oo meesha ku dukaday waxa la yidhi bixi maysid maanta waana la qadaynaysaa ماشي بان انا ماشي بس كشكي سنه كاس لو ني وات ولاد كي باب دحاي تشيخ ويا برشاد محمد تسو كاي شيء ياتي ركبت وانتي دو يمكن ما هذا هو الشيخ واي قاعد بدنا قران كما اللي تعارفوا قران كي لا يبديلسا اس برشاد اما واحد باتا ما تعارفوا الهي با ما تقنا حديثي كمت ويا الشيخ هو مباشر مرك هو دي قبل كريه هبل فنو حقيقه هذا شيخي مركي قبيل كي يعمل شيء وغيره تغير وجهه وتغير لونه اسبدا باقول وعارتي وجودتي مريركي النبابئيه باتاي مريركي سيدا نو غلاي باتاي شيخي سلامتي سنه وانا ما قشي بور بي سو قاتل ادركي بي خيركاس ادركي اي دلي والله انه سمعتي مرير لو ما تناسوكر والله انه سيغف كان مانت نينكي وحير فرح دلي أي قصة فكرة كلمتي قرآن كأيضا لا بيزقري أي اللي بتذكر يا تاي لتعرفوا